qaar ka mid ah ardayda iyagu wax ku barta dalka Malaysia ayaa waxa ay booqdeen ehelada wariye u dhashay wadanka Malaysia oo 2 September lagu dilay magaalada Muqdisho waxaana ay gaarsiiyeen deeq lacageed qoyska wariyahaasi lagu dilay magaalada Muqdisho waxaana warbixintan noo soo diray Saciid Cumar jaaliyada Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Malaysia ayaa booqasho tacsiya ugu tageen reerkii uu ka geeriyooday Allah ha u naxariistay wariyihii Maleeshiyaanka ee 2 September ee bishiina dhaaftay lagu dilay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxayna halkaasi ku gudoonseen reerkiisa oo wada joogeen guriga lacago tacsiya ay ka soo ururiyeen bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Malaysia gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed Dr. Muuse ayaa iiga warbixiyay ujeedada ay ugu tageen reerka iyo qaabka ay u soo dhaweeyeen annagoo matala jaaliyada Soomaaliyeed Malaysia waxaanu go'aansanay inaanu tacsiyo ugu tagno oo u soo tacsiyadeeno reerkaas tacsidaas waxay ahayd oo kale aanu go'aansanay inaanu u ururino contribution ama hadiyad qofkaas reerkaas laga dhintay si aan u muujino shucuurteena iyo islaamnimadeena iyo Soomaalinimadeena oo aanu u tusno inaanu nahay dad walaalo ah ninkaasuna uu ahaa nin naga dhintay annaga iyagana ka dhintay oo dad walaalo ah oo ma garanaysaa diinta walaalo ku ah markaas annagu naga dhintay iyagana uu ka dhintay marka inaanu saa u tusno ayay ujeedaduna ahayd qoyska oo dhan baan meesha kula kulanay oo diyaar noo ahaa maadaama aanu hore aanu ballan u sii dhiganay si fiican bay noo soo dhaweeyeen aad bay runtii ugu farxeen waxay kala ku sii farxeen oo ay filanayeen waxay ahayd contribution kaas lacagta aanu ka soo ururnay shacabka Malaysia ee Soomaalida ah lacagtaas oo dhamay 10,000 oo lacagta ringgit Malaysia una dhigantan lacag gaaraysa adigu 3,000 iyo wax dheer lacagta US dollarka dhanka kale Mawlid Maxamed oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed wax ka barata Malaysia iyo qaar kale ayaa iiga waramaya qaabka ay ku soo urureen lacagaha tacsida ay reerka gudoonsiiyeen iyo waliba sida ay u arkeen reerka waxa isku timid dhalinyaradii biilka ayagu ka qaata dibadaha iyo dalkii Soomaaliya hadba meesha ay ka helaanba waxa la yirnaamayo see lacag ku arurinaa ilaa 6 xaafadood bay Soomaalidu ku badan tahay iyo jaamacadaha zone ba u kala sameynay marka waxaan ku khasbanaanay inaan fundraising sameeyno lacagta u soo aruurino runtii waxay ahayd arrin qof walba oo Soomaaliya markii loo sheegayna uu ku farxay lacagtu haba iska yaraato laakiin waxa moodaa in lagu niyad samaa in lacagta la bixiyo waxay nagu qaadatay 2 asbuuc anaga oo 10 qaybood u kala sameynay jaamacadaha gacan buuxdana waxa soo aruurinta lacagtan ka geystay ururka ardayda Soomaaliyeed iyo gudoomiye iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee meesha ku naqan si wada jir ay uga qayb qaateen khaasatan hooyooyinka ayaa laftirkooda waxaad moodaa inay gacan libax ka qaateen hadafkuna wuxuu ahay inaan tusno sida aan uga xunahay guud ahaan anagu matalayna ardayda iyo shacabka guud ahaan Soomaaliyeed inaan tusino wixii aan iyo qaabka aan ugu xumeyn rasmi ahaan familka waxay ahayn famil aad u wanaagsan waana soo dhaweeyeen waxaan ugu muhiimsanaa inay qirteen ee dhahan Soomaalida way ka duwan tahay guud ahaan dadka kale maadaama ay xushmeeyeen nuguna soo booqdeen isla markaasna nala sheergareeyeen isla markaasna tusiyeen qaabka ay ugu xun yihiin geeridaas ku imaaday wiilkooda tasiinkiisa meeshaan la tagnay aad ugu faraxna waxay ahaayeen dad iimaan leh oo wadaada ah oo aad ugu farxay oo ogna wiilkooda meesha ku baxay annagana waxaan u sheegnay culture-ka Soomaalida ee leedahay in ninkaas oo kaliya oo ayaga ka dhiman oo anaga naga dhintay shacabka Soomaaliyeed ay xusi doonaan taana loo dhisi doono wiligoodna la xasuusan doono ninkaas wariyaha lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa 41 jir wuxuuna ifka kaga tagay 2 caruur iyo hooyadeeda shaqada ayaa waxa uu ku soo biiray sanadii 2002 isagoo ka soo shaqeeyay meelo badan oo dhibaatooyin ay ka jiraan sida Afghanistan Palestine iyo dhulgariirkii dhawaan ku dhuftay Japan inta uusan geeriyoon ka hor ayaa waxa uu la soo xiriiray reerkiisa isagoo xaaskiisa kula dardaarmay in ay daryeesho caruurta isla markaana aysan ka fakirin noloshiisa Saciid Cumar Universal TV Kuala Lumpur Malaysia